عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا إخيارتا channelka Ogaal Bro. maanta halkan waxaynu kula wadaagayaa qiso ku saabsan qanaacada. waana qiso aad iyo aad u cajiib ah. fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe dheh, haddaa hore ugu jirtayna like iyo share. waxaad ka faa'iiday qisadana kommentiga hoose noogu reeb. mahadsanidin. qisadu sidan ayay ku dhacday walaalayaal. waxaa jiray nin aanan lahayn wax caruur ah iyo wax xaas ah, laakiin waxa uu lahaa maal aad u fara badan. waxaa u shaqaynayay shaqaalayaal aad u fara badan. habeenada ka mid ah ayuu u sameeyey casho sharaf. wuxuuna ku yidhi anaa caaway casuumantihiin. cashadii markay dhammaysteen ayuu mid kasta hortiisa wuxuu dhigay kitaabka qur-aanka ah iyo kiisad ay lacagi ku jirto. wuxuu u yeeray ninkii waardiye ahaa ama ninkii ilaalinayay qasrigiisa. wuxuuna ku yidhi waxaad dooranaysaa kitaabka qur-aanka ah mise waxa aad dooranaysaa lacagta? wuxuu ugu jawaabay, anigu ma aqaani qur-aanka, waxaa ii anfac badan in aan lacagta qaato. wuxuu ku xigsiiyey ninkii uga shaqaynayay beeraha ama beerta. wuxuu yidhi, ma kitaabka ayaa dooranaysaa mise lacagta? wuxuuna kii beeroolaha ugu yidhi, xaaskayga iga xanuunsan, marka lacagtaan qaadanaya. wuxuu ku sii xejiyey ninkii dabaaqa ahaa ama cunada karinayay. wuxuu yidhi sidii uu kuwii hore labadii ka horeeyay ku yidhi, ma waxaad dooranaysaa kitaabka alle mise waxaad dooranaysaa lacagta? wuxuu yidhi, waan jeclahay qiraa'ada, laakiin jaanis uma helayo, lacagtan qaadanaya. waxaa ugu dambeeyey cunug yar oo guriga ka nadiifin jiray cayayaanada. wuxuu yidhi, boqorkii ama ninkii ayaa wuxuu ku yidhi, waan rajaynayaa in aad lacagta qaadanaysid, kala dooro. kabacdina wuxuu ku yidhi waxa aan qaadanayaa kitaabka alleh. hooyaday ayaa waxay igu tiri, kelmad ka mida qur-aanka ayaa waxay ka macaan badan tahay malabka iyo shaah. marka uu qaatay kitaabkii qur-aanka ahaa ayuu kala furay. waxaaba ku jira 2 warqadood. warqad waxaa ku qoran ninkan maalqabeenka ah dhaxalkiisii, maadaama aanan wax ehelkiisa aanan u noolayn, iyo lacag inta la siiyey kuwan 10 laab u dhigmaysa. marka walaalayaal, qur-aanka waa ku faa'iideynaa, kumana khasaarayno. qur-aanka ku dadaala. aad iyo aad u mahadsantihiin. waa inoo mar kaleeyo muuqaal kaloo xiiso leh. asalaamu calaykum.